الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan darsiga lasoo dhaafay aan kusoo khulaasaynay abwaabta ugu muhiimsan cilmi naxw. waxaana soo tilmaannay inay 6 baab ugu muhiimsan yihiin: alkalaamu wamaa yata'allafu minhu, almucrab walmabni, annakiratu walmacrifa, baabu alafcaal wa axkaam takhtasu bilafcaali. baabka shanaad baabu alasmaa'i wa axkaam takhtasu bilasmaa'i. baabka ugu dambeeyana wuxuu ahaa altawaabic wa axkaam mushtaraka baynahumaa haaliban. waxaan sidoo kale soo tilmaannay inay muhiim tahay ardayga mubtadiga inuu 6dan baab iska sugo intuusan u gudbin daqaa'iqda cilmiga naxwu. darsigeena maanta waxaan ku bilaabaynaa baabka ugu horeeya qayb ka mid ah alkalaamu wamaa yata'allafu minhu. waxaan ku bilaabaynaa xaddu lkalaami istilaaxan. culimmada nuxaadda kalaam waxay u yaqaanaan cibaaratun can iljumlati almufiida yaxsunu asukuutu calayha. kalaam haddaad maqashid waa jumlo wax faa'iideynaysa oo qofku ku aamusi karo, sida maalan jaa'a zaydun oo kale. waa jumla mufiida ee bimacnaa la fahmi karo, zayd waa yimid, laguna aamusi karo oo hadda hadal kale sugi maysid. culimmada nuxaadda kalaamka waxay u sameeyeen si loo dabdiyo 4 qayd. kan ugu horeeya waxaa layidhahda allafdu. qaydka labaad waxay yidhaahdeen almurakab. almurakab waxaa laga wadaa waa inuu 2 kelimadood iyo fasaacidan uu ka kooban yahay, 2 kelimadood wixii ka badan. qaydka saddexaad waa almufiid. almufiidna waxay ka wadaan waa in lagu aamusi karaa. kan ugu dambeeyana alwadcu alcarabi ama alwadcu. 2 tafsiir buu leeyahay alwadcu, laakiin waxaan ku soconaynaa bimacnaa luqadda carabi waa inuu ahaada. 4tan qayd wixii laga helay culimmada nuxaadda waxay u yaqaanaan alkalaam. qayd walba tafsiir baan ka bixin doonaa insha allahu tacaala. mithaalkiisa marka wuxuu noqonayaa alcilmu nuurun. waa kalaam. qaydkii koobaada laga helay allafdu, waanay ku dhawaaqaya alcilmu nuurun. qaydkii labaadna waa laga helay altarkiib, 2 kelimood ayuu ka kooban yahay. qaydkii saddexaadna waa laga helay alifaada. alcilmu nuurun, cilmigu waa nuur, waa jumlo wax kuu faa'iideynaysa. qaydka ugu dambeeya alwadcu alcarabi. alcilmu nuurun waa luqa carabiya waaya, mid ingiriisna ma ahan, mid kalena ma ahan. ayib, idan markaa waxaan leenahay alcilmu nuurun waa kalaam, waxaana lagu magacaabaa jumlatan ismiya. sababto waxaa lagu bilaabay alcilmu waa ism. wayanfacu alcilmu ahlah. cilmiga wuxuu anfacaa ahalkiisa. qofkii cilmiga barta cilmiga waa ku intifaacaya. jumladana waxaa loo yaqaanaa jumla ficiliya, lanna waxaa lagu bilaabay ficil, weli waa ficil mudaaric. yanfacu alcilmu ahlahu. 4 qayd waa laga helay allafdu, altarkiibu, alifaada iyo alwadcu alcarabi. darsigeena maanta intaa buu ku egyahay. waxaa xigi doonaa quyuudan 4 ah in mid loo sharxo biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.